agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Xaaji Cumar Askar ayaa ka warramay howlgal qalliin caafimaad oo ay sameeyeen dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Qalliinkaasi oo ahaa fiix culeyskeedu dhan yahay 10 kiilo. Geesta kale agaasimuhu waxa uu ka warramay adeegyada uu bulshada u fidiyo iyo howlqabadka cusbitaalku oo haatan sida uu yahay. waxaad la kulanteen bay tahay qalliin xaalad qof dumar loo sameeyay oo laga soo saaray buro maartay aad u weyn oo ah burooyinkan markaa ku dhaca qaybahan maartay xubnaha dhalmada maartay dumarka waxayna tusaysaa yacni dadaalka iyo horumarka uu sameeyay imika wax ka qabadka cudurrada dumarka ee cusbitaalka guud. runtii qalliinadaasi waa joogta loo sameeyaa dumarkana waa laga taageeraa si oo maartay dadka masaakiinta ahna si gaar ah loo bariyo ama qiimaha laga daayo ama bilaash looga dhigo. waxa kale oo ogtiin aan horeba u sheegnay in uu yahay in maartay qalliinka dumarka ee xaaladda degdeg ah dumarka uur kale ay cusbitaalka bilaash u tahay oo ay lacag la'aan tahay. waxa kale oo cusbitaalka maartay iyadana imika dadaal badan laga galay waxayna qalliinada guud ee cusbitaalka guud ahaan oo ah in la sameeyo wiigii 2 goor qalliimada maartay guud iyo qalliimada lafaha oo dadka soo jajaba iyagana la sameeyo wiigii 2 goor. marka runtii cusbitaalka waxaa kaloo jooga koox dhakhaatiir ah oo maartay takhasus leh takhasuska oo lafaha iyo qalliinka guuda qalliinka maartay dumarka oo maartay kaad maanta aragteen oo kala waa ilaa 7 dhakhtar noo joogaan. waxaad kaloo aragteen bay tahay dhakhaatiir da'yar oo iyaguna maartay qalliinka ka qayb qaata oo lagu tababaray cusbitaalka dhexdiisa. dhakhaatiirtaasi runtii qalliinka dumarka xaalad degdeg ah iyaga sameeyay kaligood bay sameeyay waxaana soo gaarsiiyay dhakhaatiirta maartay marka iyagu maartay khibrad badan leh ee tababartay ee cusbitaalka tababartay. dhakhaatiirta qalliinka sameeyay ayaa ka warramay sida ay ugu faraxsan yihiin natiijada iyo guusha ay ka gaadheen qalliinkan ay sameeyeen.